السلام عليكم ومبارك محمود صليبان maanta waxaanu ka hadlaynaa taariikhda burburkii boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo kala qaybintii wadamada Carabta kala qaybintii lagu sameeyay wadamada Carabta iyo guud ahaan kuwa Islaamka ee ku timid hanaanka qaybi oo xukun waa arrin xanuun weyn oo qaracan leh gaar ahaan marka loo eego habka ay ku timid 100 sano ka hor Carabtu waxay ka mid ahayd boqortooyadii Cusmaaniyiinta laakiin marka aad eegto khariirada wadamada Carabta haatan waxaa kuu soo baxaya in ay la mid tahay ciyaarta jigsaw basal waa sida ay isugu qasan yihiin waana qorshe ku yimid soo afjaridii boqortooyadii Cusmaaniyiinta 1910 kadib abuuristii iyo samayntii wadamo cusub oo xuduudo isku qasan leh taasoo qaybisay bariga dhexe iyo muslimiinta haddaba qoraagii lagu magacaabi jiray Alberto Fadlo Hurani oo ahaa qoraa asalkiisu ka soo jeeday Lubnaan oo noolaa intii u dhaxaysay 1915 ilaa 1993 buuggiisa History of the Arab Peoples ama taariikhda dadyowga Carbeed wuxuu si qoto dheer ugu nuuxnuuxsaday oo ku sharaxay buuggiisa sida wadamadii galbeedka ee ay hormuudka u haayeen Britain ay ugu guuleysteen kala qaybintii dunida Islaamka inkastoo ay jireen sababo isbiirsaday oo horseed ka dhigay kala qaybintaas haddana Britain ayaa lagu eedeeyaa inay mas'uul ka ahayd kala qaybintaas waxaana lagu tilmaabaa natiijo foolxun oo dunidii muslimka qayb loogu kala gooyay qaraxii dagaalkii koowaad ee dunida sanadkii 1914 waxa dagaal uu ka qarxay Yurub taasi oo ay sabab u ahayd loolan awoodeed isbahaysi ku salaysan gaashaanbursi iyo cadowtinimo sidoo kale hami gumaysi iyo maamul xumo baasan oo fiktii ugu sareysay ka gaadhay dawladihii Yurub mahadadii ay reebeen arrimahan waxay horseed ka dhigtay geerida 12 milyan oo qof intii u dhaxaysay 1914 ilaa 1918 haddaba isbahaysatadu waxay ka koobnaayeen Britain, Faransiiska iyo Ruushka oo ka soo horjeeday dawladihii dhexe ee Jarmalka iyo Usderia Hungary haddaba bilowgii dagaalkii boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxay go'aansadeen in ay dhexdhexaad ka noqdaan waayo uma ay lahayn awood sida ay u lahaayeen wadamadii ku lugta lahaa dagaalka waxaana itaal tiray caqabado gudaha iyo dibadda suldaankii Cusmaaniyiinta ee ugu dambeeyay ee awoodda lahaa wuxuu ahaa Cabdulxamiidkii labaad kaas oo la afgambiyay sanadkii 1908 taasoo ay bedeshay dawlad military dawladdaasina waxay ahayd mid cilmaani ah oo reer galbeedka u janjeedha waxay u badnaayeen dhalinyaro Turki ah dhaqaale ahaan Cusmaaniyiintu ma haysan dhaqaale ay ku bixiyaan deynta ay wadamada Yurub ku lahaayeen markasta oo ay isku dayaan inay ku biiraan isbahaysigii Britain, Faransiiska iyo Ruushkana waxaa laga horkeeni jiray diidmo waxaana ay taasi ay keentay in ay u xagliyaan dhinaca Jarmalku hogaaminayay bishii Oktoobar 1914 haddaba nin professor oo jaamacadda Oxford ka dhiga culuumta taariikhda casriga ah ee bariga dhexe kaasoo lagu magacaabo Professor Egan Rogan wuxuu ku sifeeyay sababihii Cusmaaniyiintu dhabarka ugu jeediyeen isbahaysiyadii Ruushka, Ingiriiska iyo Faransiiska ee Jarmalka ka soo horjeeday ay ugu biireen iyadoo Turkigu ka biyo diideen sheegashadii Ruushku uu sheeganayay magaalada Istanbul in uu leeyahay waxayna taasi keentay in ay xiriir la yeeshaan Jarmalka Britishku waxay isla markiiba bilaabeen qorshe degdeg ah oo ay doonayeen inay kaga takhalusaan Cusmaaniyiinta isla markaana ay kordhiyaan nidaamkoodii gumaysiga ee bariga dhexe waayo waxay gacanta ku hayeen Masar tan iyo sanadkii 1888 iyo sidoo kale Hindiya tan iyo 1857 kacdoonkii Carabta mid ka mid ah istiraatiijiyadii Britishku waxay ahayd yoolkeedii in la rido boqortooyadii Cusmaaniyiinta taasoo ka soo horjeeday abuuritaanka dawlado yaryar haddaba waxay Britishku ka heleen caawin qorshahooda ay ku meel marin karaan gobolka Xijaas oo ku yaal wadanka Sacuudiga ayna ku yaalaan Maka iyo Madiina haddaba Shariif Hussein bin Ali oo ahaa amiirkii Maka wuxuu heshiis la galay dawladii Britishka heshiiskaas oo ahaa in ay ka hor yimaadaan boqortooyadii Cusmaaniyiinta
waxayna tani ka dambeysay waraaqo ay isdhaafsadeen Shariif Xuseen iyo Sir Henry oo ahaa ergeygii mustacmaradda Ingiriiska u fadhiyay waddanka Masar. waxaana xiriirkoodu uu socday 14 July 1915 ilaa 30 January 1915. Britishku waxay dhiirigeliyeen Carabta in ay sameeyaan kacdoon ka dhana Cusmaaniyiinta, taasi beddelkeedana ay u aqoonsan doonaan dawlado madax bannaan. in ay sidaasi go'aansadaan waxaa xudun u ahaa laba qodob: boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo bishii November 1914 si rasmi ah isbahaysi ula samaysatay Jarmalka dagaalkii koowaad ee adduunkana ku biirtay. dadkii Carbeed iyo madaxdoodii oo ay ka arkeen inay doonayaan inay ka hor yimaadaan Cusmaaniyiinta. haddaba dabayaaqadii sanadkii 1916 Ingiriiska iyo Faransiisku waxay gaadheen heshiis qarsoodi ah oo ay ku kala qaybinayaan dhulalkii boqortooyadii Cusmaaniyiinta. sababaha kale ee iskaashiga uu Shariif Xuseen ula samaystay Britishka wuxuu ku macneeyay muran shakhsi ah oo kala dhexeeyay Cusmaaniyiinta. waxaase kale oo jirta tuhun ah in uu doonayay inuu iskiis u dhisto boqortooyo. haddaba kacdoonkii Carabta 1916 ilaa 1918 Shariif Xuseen wuxuu go'aansaday inuu ka hor yimaado Cusmaaniyiinta uuna isbahaysi la samaysto Britishka. taas beddelkeedana Britishku waxay u ballan qaadeen hub iyo dhaqaale. sidoo kale Britishku waxay u ballan qaadeen Shariif Xuseen in kadib dagaalka koowaad ay u ogolaan doonaan inuu dhisto boqortooyo Carbeed oo gacanka Carabta ka hirgasha, taasi oo ay ku jiraan Suuriya iyo Ciraaq. haddaba bishii Juun 1916 Shariif Xuseen oo hogaaminaya koox hubaysan oo ka tirsanaa dagaalyahanadii Badaawiyiinta ee gobolka Xijaaz ayaa dagaal kala hor yimid xoogagii Cusmaaniyiinta. muddo yar oo bilooyin ah kadib waxay awood u yeesheen inay qabsadaan magaalooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin Jidda iyo Maka. waxa ayna taageero ka helayeen ciidamada badda iyo dhulka ee Britishka. Britishku wuxuu ku taageeray ciidamada Carabta ee ka soo horjeeday Cusmaaniyiinta khuburo military oo talabixin siinaysay oo uu ka mid ahaa Thomas Edward oo ahaa sarkaal military oo ciidamadii Carabta kala qayb galay dagaallo kala duwan oo ay kaga soo horjeedeen Cusmaaniyiinta oo ay ka mid ahaayeen dagaalkii ka dhacay magaalada Dufayla ee ku taala badda Mootan ee dalka Jordan. dagaalkaas ka dhacay Dufayla 25 January 1918 sida uu ku qoray xasuus qorkiisa The Edward Lawrence. ciidamo ay hogaaminayeen isaga iyo Prince Said bin Hussein ayaa burburiyey 900 oo ka mid ah ciidamada Turkiga oo saldhig ku lahaa agagaarka magaalada Dufayla. haddaba Prince Said bin Hussein wuxuu ahaa wiil uu dhalay Shariif Xuseen oo ahaa amiirkii Xijaaz isagoo hogaaminayay ciidamadii waqooyiga Carbeed. waxaana Lawrence uu ka dhaadhiciyay inuu boqor u noqon doono Suuriya marka laga xoreeyo Cusmaaniyiinta. haddaba 1917 ninka lagu magacaabo Lawrence wuxuu hogaaminayay kaalin weyn ka qaatay dagaalkii caanka ahaa ee Aqba. waxa kale oo uu u qaybiyey dagaalyahanadii Carabta calan ay ku dagaalamaan, kaasi oo markii dambe u noqday astaan inta badan calamada dalalka Carabta sida Jordan, Falastiin, Suudaan, Suuriya iyo Kuwait. dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka 1917 ilaa 1918 dagaalyahanadii Carabtu waxay qabsadeen magaalooyinkii waaweynaa ee ay ka talinaysay boqortooyadii Cusmaaniyiinta, halka Britishku doonayeen inay qabsadaan Qudus iyo Ciraaq. arrinta xusida mudan waxay tahay in badi dadka Carabtu aanay doonayn kacdoonka Carabta ee ka dhanka Cusmaaniyiinta. hase yeeshee wuxuu ahaa dagaal ay dan iyo ujeedo ka lahaayeen kooxo gaara iyo qabiilo yaryar oo danahooda khaaska ah u doonayay in ay ka hor yimaadaan Cusmaaniyiinta. qorshihii Shariif Xuseen ee ku aadanaa inuu dhisto boqortooyo Carab ah oo uu hogaamiyo waxay u muuqanaysay mid guulaysan karta haddii aanay jiri lahayn heshiisyadii kale ee Ingiriisku la galay dowladdii Faransiiska. heshiisyadaas oo ahaa intii aanay bilaaban kacdoonka Carabta ama ka hor intii Shariif Xuseen aanu dhisin boqortooyo Carbeed, waxaa jiray qorshe ay lahaayeen Britishka iyo Faransiiska. xagaagii 1915 ilaa 1916 laba diblomaasi oo kala ahaa Sir Mark Sykes
oo British ahaa iyo Francos George Picot oo Faransiis ahaa ayaa kulan qarsoodi ah ka yeeshay aayaha boqortooyadii Cusmaaniyiinta ee dunida Carabta. haddaba sida ku cad heshiiskaasi ee Faransiiska iyo Britain waxay isku raaceen labada dawladood in ay kala qaybiyaan dunida Carabta iyagoo u kala qaybsanaya in Britain qaadato maamulka dhulka maanta ah Iraq, Kuwait iyo Jordan, halka Faransiisku uu qaadanayo Suuriya, Lubnaan iyo waqooyiga Turkiga. aayaha Falastiin ayaa la isku raacay in dib loo dhigo iyadoo xisaabta lagu darsanayo maankana lagu haynayo damaca Yuhuudda. goobihii haddaba gacanta u galay Britishka iyo Faransiiska waxaa loo ogolaaday Carabta ismaamul hoose walow ay awoodda lahaayeen Yurubiyaanku, inkastoo heshiiskaasi uu ahaa mid qarsoodi ah kaasoo ka hor ahaa dagaalkii koowaad ee adduunka. haddana sanadkii 1917 ayuu soo shaabaxay waxaana kashifay madaxweynihii Ruushka ee xilligaas Bolshevik. heshiiskaas la magac baxay The Sykes-Picot Agreement waxaa loogu magac daray labadii nin ee ansixiyey. wuxuu ka hor imanayay ballanqaadkii Britishku u sameeyey Sharif Hussein, waxaana uu sababay xiisad iyo muran la taaban karo oo ka dhex dhacay Carabta iyo Britain, balse taasi ma noqon heshiisyada muranka dhaliyay ee Britishku galeen. war murtiyeedkii Balfour, koox kale oo doonaysay inay oraah ku yeelato siyaasadda dhulka bariga dhexe waxay ahayd Yuhuudda ama Sahnuuniyadda. waxay ahaayeen dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo u halgamayay in dhulka barakaysan ee Falastiin laga hirgeliyo dawlad Yuhuudi leedahay, taasoo soo bilaabantay sannadihii 1800. ujeeddada kooxdaasi waxay ahayd in dhul ka baxsan Yurub loo helo dalka Yuhuudda, kuwaas oo badankoodu ku noolaayeen Jarmalka, Poland iyo Ruushka. ugu dambayn kooxdaasi waxay go'aansatay inay cadaadis ku saaraan dawladda Britishka intii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee adduunka inay u ogolaato inay degaan Falastiin marka uu dhammaado dagaal. haddaba dawladda Britain gudaheeda waxaa jiray damqasho iyo naxariis ay u hayeen dhaqdhaqaaqaas. haddaba mid ka mid ah wuxuu ahaa Arthur Balfour, wasiirkii arrimaha dibadda Britain. labadii bishii Noofembar 1917 Balfour wuxuu waraaq u diray Baron Rothschild oo ahaa hogaamiyihii bulshada Yuhuudda. waraaqdaas wuxuu shaaca uga qaaday taageero rasmi ah oo ay dawladda Britain u hayso dhaqdhaqaaqa Sahnuuniyadda ee ujeedkoodu yahay dhismaha dawlad Yuhuudi leedahay oo ka hirgasha Falastiin. saddexdii heshiis ee iska hor imanayay sanadkii 1917 Britain waxay samaysay 3 heshiis oo kala duwan oo ay la gashay 3 kooxood oo kala duwan, kuwaasi oo ku aadanaa mustaqbalka siyaasadeed ee dunida Carabta. dhanka Carabta waxay ku adkaysteen in ay helaan boqortooyo Carbeed, taasi oo ku aadan heshiisyadii Britain la gashay Sharif Hussein. Faransiiska iyo Britain heshiiskii dhexmaray ee ay ku heshiiyeen in ay kala qaybsadaan dunida Carabta iyo in Yuhuudda la siiyo dhulka Falastiin, taasi oo ahayd ballanqaadkii Balfour. haddaba 1918 dagaalkii ayaa dhammaaday waxaana guushii ay raacday isbahaysyadii Britain iyo Faransiiska. waxaa sidoo kale burburtay boqortooyadii Cusmaaniyiinta, inkastoo magac ahaan ay u jirtay ilaa 1924. dhammaan dhulalkii ay ka arriminaysay boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxay hoos galeen Yurub. dagaalkii ayaa soo afjarmay, laakiin aayaha bariga dhexe weli 3 dhinac ayuu khilaaf uga dhex jiray. kuma haddaba guulaysan doona? ma jiro mid helay sidii uu doonayay. natiijadii ka soo baxday dagaalkii koowaad waxay noqotay dhismaha golihii la oran jiray League of Nations oo ahaa ururkii ka horreeyay hay-adda qaramada midoobay. ujeedooyinkii lagu aasaasay waxaa ka mid ahaa in ay kala qaybiso dhulalka la qabsaday ee hore Cusmaaniyiintu ka talin jireen, ayna soo saarto habkii lagu maamuli lahaa wadamada Carabta iyadoo la hoos keenayo Faransiiska iyo Britain ilaa ay awood u yeeshaan inay gacmahooda isku taagaan. ururkaasi wuxuu soo qaabeeyey habka xuduudaha bariga dhexe uu noqonayo. waxaa la soo saaray qariirad cusub oo bariga dhexe yeeshay. waxaase la jeexay xuduudahaas iyadoon waxba laga weydiin dadkii ku noolaa dhulkaas. looma kala saarin qowmiyado, juqraafi ahaan ama xudumo diimeed. waxaase loo hindisay isku jirka dookha quwadihii ku midaysnaa ururka ummadaha midoobay. ilaa iyo maanta ma jiro xuduud siyaasadeed oo ku taala bariga dhexe.
oo u kala saaraysa dadka isir ahaan. Tusaale ahaan ma jiro wax kala saaraya dadka ka soo jeeda Ciraaq, Jordan iyo Suuriya. waxa si farsameeyay reer Yurub gaar ahaan fikirkoodii ku salaysnaa qaybi oo xukun, walow ogolaanshaha ururka ummadaha midoobay uu siinayay Britain iyo Faransiiska awoodda ay ku maamulaan Bariga Dhexe. haddana Shariif Xuseen iyo wiilashiisa waxa loo ogolaaday inay xukun dhistaan, balse ay ku hoos jiraan ilaalada maamulka Britishka. sidoo kale Amiir Faysal ayaa waxaa laga dhigay boqorka Suuriya iyo Ciraaq, halka Amiir Cabdullaahi laga dhigay amiirka Jordan. taasi waxay ahayd magacuyaal, waxaase awoodda rasmiga lahaa Britishka iyo Faransiiska. yuhuudda waxaa loo ogolaaday oo ay u fasaxday dowladda Britain inay degaan Falastiin, balse waxaa ku xidhan shuruudo xadidan, waayo dowladda Britain ma doonin inay ka caraysiiso carabta markii horeba ku noolayd Falastiin. markaa waxay isku dayeen inay xadidaan yuhuudda soo galaysa Falastiin. xadidaadaas waxay ka caraysiisay yuhuudda, kuwaas oo markii dambe la yimid khiddo ah inay si dhuumaalaysi ah ku soo galaan Falastiin. sidoo kale carabta ayaa iyaguna dhuumaalaysigaas oo kale ku gelayay Falastiin, waayo waxay u arkayeen yuhuudda soo galaysa Falastiin inay ku tahay duulaan lagu soo qaaday dhulkooda. haddaba isku qasnaantaa siyaasadeed ee ku talagalka u sameeyeen quwadihii ku guulaystay dagaalkii koowaad ee adduunka ilaa iyo maanta waa midda taagan. heshiisyadii iska hor imanayay waxay xudunteedu noqotay in dowladaha islaamka ilaa iyo maanta ay mid isaga soo horjeedaan si deganaansho la'aan uu ku sugnaado Bariga Dhexe. haddaba waxaa kobcay yuhuudda, kuwaasi oo ka faa'iidaystay kala qaybsanaanta muslimiinta gobolka. kala qaybintii lagu sameeyey muslimiintu waxay jirtaa ilaa iyo maanta, iyadoo ay soo baxayso ifafaale kale oo lagu sii kala qaybinayo kuwii markii hore kala qaybsanaa. in yar aan qoraansanno 30 sano ka hor, Ciraaq hal wadan oo awood leh ayuu ahaa. maantana wuxuu qarka u saaran yahay inay ka soo baxaan 3 dowladood, Shiico, Sunni iyo Kurdi, kuwaasi oo cadow isku ah oo midba midka kale doonaya inuu dilo. haddaba Suuriya ayaa dariiqaas oo kale ku socota, Yemen ayaa hadda qarxaysa, Soomaaliya ayaa miiska saaran, Suudaan ayaa 2 cad loo kala jaray, Bahrayn ayaa la isku haystaa, Iiraanna cagaha ayaa dhulka loogu garaacaya. docda kale haddii aan ka eegno maqaaladan, waxaan ugu talagalay taariikh aan u arkay inay u baahan yihiin dadkeena inta aan ka dheregsanayn, isla markaana ay inoo noqoto cashar wanaagsan oo aan uga hakan karno dabinka iyo sidhiqda cadowga la maagan yahay dadka iyo dalka Soomaaliyeed. jidkii loo maray ummadihii Carbeed ama Islaamka mid la mid ah ayaa hadda dadkeenu ku socda, haddii aan la helin hogaamiyayaal aragti fog oo khilaafka dhexdeeda u arko wax sahlan oo laga gudbi karo. ayna ka culus tahay in waddanka loo kala qaybiyo cadcad, midba geestiisa awood la'aan loogu xukumo, ayna halkaasi ku wiiqanto midnimadii ummadeed iyo tiiruleed. wadajirka ummadeed wuxuu u yahay daawo iyo ka hortagga foolxumada ay leedahay kala qaybsanaanta iyo kala dhantaalanka awoodeed. waxa inoo furan dow aynu uga talaabi karno halista cadowgu la maagan yahay ummadeenna intay goorgoor tahay. mahadhada ugu weyn ee ummadda siibtaana waa qaybi oo xukun, taasi oo ku timaada khilaafka iyo isnacaybka bulsho, taasi oo haddii aan la eegin danta guud ay imanayso in ummaddaas la kala qaybiyo kadibna la xukumo. ummadda Soomaaliyeed waxma kama duwana dadka Kurdiyiinta oo 5 wadan loo kala qaybiyey, dadka Falastiin oo ilaa iyo maanta waxa haysta aynu markhaati ka nahay, dadka Kashmir oo Hindiya iyo Bakistaan loo kala jaray iyo Shiine, dadka asalka u ahaa Australia iyo New Zealand oo dhulkoodii loogu yimid oo awood iyo maamuus midna ku haysan, dadka Indianiska ee Ameerika loogu tegay oo geedaha iyo buuraha la saaray, xoogna loo sheegtay iyagoo jooga ciidoodii. haddii aanay iman caqli shaqeeya, haddii aan la helin tanaasul iyo iscafis, oo aan cid kastaa wixii ay geysatay aanay qiran, ayna raalligelin ka bixin, haddii aynan ku baraarugin siriqda inoo daadsan ee aynu sida hawsha yar ugu dul soconno, haddii aan la helin hogaamiyayaal dadkooda aan runta u sheegin oo aan ka dhaadhicin in Soomaalinimo wax lagu waayay qoloqolo iyo qabiil aan lagu helayn,
waxaa iman doonta maalin aynu waxba qaban karin, isla markaana gacanteena waxa hadda inoogu jira aan inoogu jiri doonin. maanta taariikhdeenii halkaa inoogu joogto. qoraalkan waxaa qoray oo aan ka soo xigtay Mawliid Xaaji Cabdi, waana qoraa taariikhda adduunka iyo falanqeeyo siyaasadeedba. mahadsanidin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.